isagana waxa uu ku qoray hal ilbiriqsi ay ilaahay tala saaratid waxa uu kaaga kaafiyaa noloshaada oo dhan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. sabanadii hore ka mid ah waxaa jiray nin boqor ah oo caadila dadkan aad iyo aad ay u jecel yihiin. waxa uu dhalay 2 wiil. maalinkii dambe waxaa xijaabtay boqorkii oo waa la soo aasay. dadkiina marka ay kulmeen oo mushaawaro badan ay samaysteen waxa ay doorteen kii weynaa ayay waxay u doorteen in uu booska aabihiis fadhiisto oo boqor halkii ka noqdo. kii weynaana xilkiiba oo la wareegay asaga oo faraxsan reen zaa'idna dareemayo. laakiin midda murugada ku noqotay waxa ay ahayd dadweynaha waxa ay jeclaayeen walaalkiis ka yar oo markuu dhib jiro asay u imaan jireen oo dhibka la qaybsan jireen. markii ay wax raadinayaanna asagay u imaan jireen ee wax weydiisan jireen. dadkana waxa ay jeclaayeen la kulankiisa iyo la sheekaysigiisa. midkii weynaa aad iyo aad ayuu u dhibsaday jacaylka ay dadweynaha u qabaan walaalkiis ka yar. waxa uuna istusay haddii ay arrintan sii socoto in ay marka dambe oo xilka kala wareegi doono asagana uu booska boqortooyada dhaxli doono asagana uu ka burin doono. waxaa gashay xaasidnimo iyo xiqdi aad iyo aad u weyn oo la adkaysan waayey waxa meesha uu ka socdo. maalinkii dambe waxa uu go'aansaday walaalkiis in uu dilo ama dhulka uu ka buriyo. waxa u tegay walaalkiis waxa uu yidhaahday niyahow magaaladan nama wada deeqdo isaga tag haddii kale gacantayda ayaad ku bixi doontaa. wiilkii yaraa wuu iska baxay oo safar dheer ayuu iska aaday asagoon garanaynin meel uu aado. waxa uu jidka kula saaxiibay 3 nin oo kale oo 4 kula noqday. waxay sheekaysteen oo waxay dhaheen niyahow haddii aan magaalo tagno maxaan qabsan doonaa. midka koowaad ayaa waxa uu yidhaahday anigu waxaan ahay beeraley. haddii aan magaalo tago qoryahaas iyo waxaasaan soo gurayaa kadib magaaladan keenayaa waa gadayaa. kii labaad asagana waxa uu yidhaahday anigu waxaan ahay nin tuug ah qurux badan dadkan igama shakiyaan xatooyadayda ayaan ku noolaanayaa. kii saddexaadna waxa uu yidhaahday aniga waxaan ahay ganacsade dadka ayaan ganacsiga uga faa'iideynayaa waana ka helayaa. wiilkii boqorkana wuxuu yidhaahday aniga ilaahay baan tala saaranayaa waxa uu i siiyo ayaana ku noolaanayaa. afartoodii waxa ay soo gaareen magaalo. waxay ku heshiin magaalada in aan la gelin laakiin maalinba mid uu magaalada aado oo waxa uu yaqaana magaaladaas waxa uga soo dhiciyo oo maalinkaas qadada iyo cashada magaalada uga soo diyaariyo. waxaa bilaabay maalinkii koowaad kii beeraleyda ahaan jiray. duurka ayuu tegay qoryo ayuu soo guray. waxa uu geeyey magaaladii qoryihii markuu soo gaday waxaa laga siistay nus dirham. kadibna qada ayuu ku soo gaday markii uu magaalada ka soo baxayay oo derbiga waxa uu ku qoray hal maalin shaqadeedu waxay u dhigantaa nus dirham. waxaana uu u keenay saaxiibadiis wayna wada qadeeyeen. waxaa lagu xijiyey kii labaad oo yidhaahday maalinkii ku xigtay adigana maanta magaalada naga soo sooriyey. magaaladii ayuu aaday asagana waxa uu qayaanay iyo waxa uu gaaday wasu'ile u raadinayay. maalinkii dambe isla maalintaas waxa uu soo xaday lacag fiican oo u dhiganto 50 diinaar. albaabkii magaalada ayaga wuxuu ku soo qoray asagana xatooyo maalmood waxay ugu dhigantaa 50 diinaar. saaxiibadiisna qaadadii ayuu u keenay. waxaa loo diray kii saddexaad oo asagana la yidhaahday magaalada nooga soo sooriyey maanta adigana. suuqa ayuu tegay wuxuu ka bilaabay dekadihii iyo meelihii la ganacsiga ayuu tegay. niman ayuu u imaaday raashinka aad maanta magaalada soo geliseen aniga ayaa idiin gadayo ee waxa aan ka heshin wax iga siiya. haddaan faa'iido badan idin keeno waxaan ku leeyahay way ka ogolaadeen. kadib waxa uu sameeyey raashinkii dhan igu wareejiya suuqana wuxuu geliyey nin safar ayaa imaaday oo raashinkii dhan la wada wareegay oo maanta magaalada raashin ma lahan. ganacsatadii ku soo oroday ayuu wuxuu yidhaahday adiga intaasa kaa siinaa oon kuu reebayaa maadaama aanin ganacsi xoog la tahay. isku dawareeg asagana maalinkaas wuxuu soo faa'iiday 1,000 diinaar. derbiga ayuu wuxuu ku qoray
faa'iido ganacsi maalintii waxaa ka heli kartaa 1,000 diinaar. maalinkaasna saaxiibadiis asaa magaalada qadadii uga soo dhiciyey. waxaa la gaaray wiilkii boqorka isaga waxba ka aqoon magaalada oo la yidhaahday maanta magaalada nooga soo sooriyey. wiilkii markuu magaalada imaaday meel uu ka bilaaba iyo wax uu sameeyo ayuu garan waayey. waxa uu fadhiistay albaabka weyn ee magaalada laga soo baxayo isagoo meesha iska fadhiyo oo wax uu kasila wuxuu sameeyey garan la ayaa waxaa soo baxay dad aad iyo aad u badan oo murugaysan meydna wado. kadib nin ka mid ah dadkii ayaa meesha ka buriyey wiilkii yidhaahday ka tag meesha. wuu cararay laakiin markii ay gudbeen ayuu ku soo noqday. mar labaad ayaa ay soo noqdeen. midkii ayaa u wacay oo wuxuu yidhi saadayti meeshaan kaama burin maxaa kugu soo celiyey. kadibna askar intuu ku dalbay oo xiray ayuu kaxeeyey. dadka kalena waxay ahayn dad aad iyo aad u murugaysan oo maalinkaas magaalada boqorkii ka talinayay ayaa xijaabtay. waxay u fadhiisteen sidii ay u dooran lahaayeen nin boqor ah iyo ninka loo magacaabi lahaa. laakiin ninkii ayaa yidhaahday wiil aan magaalada ka soo qabtay oo soo waday ayaa jiro maxaan ku samaynaa wuxuu u yahayna waan fahmi waayey. ninkii kusimihii ayaa u wacay oo weydiiyey adigu maxaad ahayd. wuxuu yidhaahday ani hebel ayaan ahay hebel magaalo hebel ayaan ka imaaday walaalkii markii la doortay ayuu idhibsaday waan isoo buriyey. ninkii ayaa la yidhaha dadkii meesha fadhiya ayay yidhahdeen ninkaas waa la yaqaanaa waxa uu ahaa boqor caadilah waxa uu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan. wallaahi ninkii aan dooran lahayn hadda ayuu noo imaaday oo midka yar waa midka wanaagsan. kadibna waxay isku raaceen in ay asaga wiilka ah boqor ka dhigtaan oo meesha boqortooyada asaga oo fadhiiso si cadaaladna uu u kala wado howshii. kadib waxa uu yidhaahday saddexdayda saaxiibood ee magaalada bannaankeeda joogto ha la igu waco. darbigii albaabkii magaalada laga baxay derbigoodii ay saaxiibadiis wax ku qorayeen asagana waxa uu ku qoray hal ilbiriqsi ay ilaahay tala saaratid waxa uu kaaga kaafiyaa noloshaada oo dhan. saaxiibadiis midkii tuug ah wuxuu ku amray dadkan way aamineen tuugna inuu ku dhex noolaado waa ka mamnuuc magaalada isaga bax. labadii kalena waxa uu sameeyey shaqo abuur ayuu u sameeyey oo xilal ayuu u dhiibay. sidaas ayaana ilaahay nolol farxad leh ku siiyey iyo reen labadiisii saaxiibna ay kula qaybsadeen farxaddiisii.